meeshan waxay ahayd meel magac lahaan jirtay waqtiyada qaarkood hase yeeshee dib isku cuntay ha ka mid noqoto sababaha ay u noqotay markii ay u badatay reer quri ku soo hadhay magaalo ma noqon karo reer quri waxaan garanayaa halkan oo la yidhaaho quljeed buu ka yimid dariiqa loo joogsado iyadoo qofku wax laga doonayo laleeyahay warjaadkii quljeedna sii maantana waa cagskiygii waa dhankaygii kale degmaa laydinku magacaabay degmada waxaa laga yaabaa inaydaan garanba macnaheega labada sannadood ee ay dawladdani jirtayba degmadaasi way jirtay shaabadii markii ay hayr tuulaha ahayd jeebka lagu hayay unbaana ilaa maanta lagu hayay halkan maalintii lagu dhaqaaqo 9 bilood horteed waxaan halkan ka sheegay waar golihii deegaanku aaway golo deegaan baad noqoteen golihii deegaanku aaway waxaan idin xasuusiyay soo ma dhanna deegaankii u dhanyahay soo ma waxaan idin xasuusiyay aqalka maalintii shalayda kaga xidhay ee la yidhi jaad iyo sigaar mid cabi meysaan ilaa waxaan doona aad yeeshaan annagana dawladda un baaskarigu lagu celinayay idinkana gudihiidu ku celin laga soo saaray meesha dee way ka tagtay tii oo degmay noqotay degme markay noqotay waxaad noqoteen dad ismaamuli kara haddii aad dad noqotaan ismaamuli kara dhaqaale waad leedihiin dad badan baad leedihiin degmo ballaaran baad haysataan laakiin waxaa laydinka doonayaa inaad tala ballaaran yeelataan ayaa laydinka rabay tala ballaaran inaad yeelataan qormaa meel idin taalla qaran baa tihiin inta qabiilada la dhaafo inaad qaranka iyo qormada meesha idin taalla wada difaacdaan waxa aad iyo aad farxad u ah in aad maanta dhan tihiin oo aad isugu timaadeen shirkii idinku horeeyay ee golo degaan marka la leeyahay waxna waad leedihiin waxna waa laydinku leeyahay waxaad la soo baxaysaan cashuurtiinnii maalintaad shirka leedihiinna gunihiidni baad leedihiin oo laydin baryootami maayo wixiinni baad leedihiin ee laydin baryootami maayo waxayna imika u suuro geli weyday in shirkan la qabto waa gunalaanta wey waynu sugnahay imika waxaa laydinka baahan yahay wixii aad lahaydeen inaad la soo baxdaan wuu idinka maqan yahay wixii aad lahaydeen haddaad dawlad ku lahaydeen wuu maqan yahay haddaad dadka ku lahaydeenna wuu idinka maqan yahay ninba meel unbuu joogaayo beel unbuu maxka yahay laakiin waxba taasi dee way keeni weyday way dhammaanayaan iminka mashaariicdii golayaasha deegaanka lagu horumarinayay siminaaradii baad qasaarteen dhaqaalii aad lahaydeen baad qasaarteen gaadhi baad lahaydeen dhaqaalaad lahaydeen idinkaa wax laydin beri lahaa waxna waad baran lahaydeen dabeetna waxbaad soo saari lahaydeen waxna waad qaadan lahaydeen dhammaad buu ku jiraa mashaariicdii loogu talagalay golayaasha deegaanka in hore loogu mariyo haddaad se maanta timaadeen waa ilaahay mahadii oo aad dantihiin waxaan idinku boorinayaa inaad la soo baxdaan waxa aad leedihiin ilowdaanna wax anaad ogaataan waxani inaad yahay wax gacantiina ku jiro oo idinku la soo bixi kartaan leedihiinna maanta maaha maalintii aad xaggan eegeyseen boorama gaadhi idinka imanaya maaha idinkaa wax laydinka eegaya daraad waad ogeedaan halkan askartii aan keennay qadalaan bay ka tegeen loogama barin caadada quljeed waa naanaysan nagu maqan oo welina hor taalla askartii amniga idinku timiday ee guddoomiyaha la socotay halkan qadalaan bay kaga tegeen caadadii quljeed ma haddee talalaan baa keentay ilaahay idinkii dib u dhici mayso waxaa laydinka doonayaa oo laydinka doonayaa in aad dadkiina iyo dalkiinan anfacdaan mas-uuliyaddu in bay idinka saaran tahay atraafta ay tahay beeshu intiinana mas-uulka ah wixii tegay lasoo qaban maayo laakiin iminka waxaa la doonayaa inay idiin bilaabato weji cusub guddiga ugu horeeya la magacaabo ee guddoomiyuhu magacaabo ee loo magacaabo dhaqaaluhu ama khilaafaadku waa inuu howlgalaa haddii ilaahayga yidhaaho dabeetana waxaa idinka soo dhex bixi doontaa jacayl aydaan maanta isku haynin baad idinka soo dhex bixi walaalnimo aydaan imika garanin baad idinka soo dhex bixi marka cidda halkaa idinku timaada iyadoo faraxsan idinka tegto idinkuna wixii aad doonaysaan aad qabsataan waxaa idinka soo baxaad arki doontaan idinka oo sidii aad ahaydeen iska jecel isna ogaaday wixii aad ahaydeen maxamed axmed siraayo iyo saylici waxaan loogaada mar labaadka waxaan si fiican soo dhaweynaynaa gudoomiyaha cusub
loo soo magacaabay degmada Qurjeed. waxaan ku leenahay gudoomiye ku soo dhawow degmada Qurjeed si fiican baan ku soo dhaweynaynaa haddaan nahay duqaydii wadanka kuwa shaqeynaa gudoomiye degmadu waa degmo ballaaran oo beeraley ah xoolo dhaqato ah dhaqaale badan leh dhaqaalahaas wax si fiican u maamula hadduu helo waa degmo isbixi karta degmadaas insha Allah taala ilaahay kula garab qabto inaad si fiican kii u maamuli lahaa inaad tahay ayaan ilaahay kaaga rajaynayaa aan hay dadweynihii degmada aan codsi adigana ku dhiibaynaa hay-adaha banka adduunka iyo dowladda Somaliland ba aan ka codsanaynaa inay wixii mashaariic wadanka ka socda qaybteeda naga siiyaan nooguna horreysiyaan mashaariicda maanta noogu daran waxa weeye xagga beeraha oo ay goyseen la garanaysaa ay bohoro meelan gooyeen waxaan idaacadda ka dhageysanaynay in banka adduunka oo mashaariic ka fulinayo Somaliland marka hore hay-adaha wadanka joogay dib joojin bay haayeen wax qabad yar bay sameeyeen laakiin mashaariiceed baa bilaabmay baan idaacadda ka dhageysanaynay banka adduunka deymo oo ganacsatada siinayo ayaan idaacadda ka dhageysanaynay biyo xidheeno ayaan dhageysanaynay waxaan ka codsanaynaa banka adduunka iyo hay'adaha kala deeqda bixiyaba in ay mashaariicda qayb weyn naga siiyaan gudoomiye de kullay halkan isku imaatankan waa dartaabaan malaynaa waxaan isugu imaaday waa isku kala yeedhay kuwa degmada ka yimid iyo kuwa beelaha ka yimid iyo kuwa tuulada qudheed magaalada qudheed ka soo baxay horta ku soo dhawow baan kulaanahay tafadal degmadu waa taadi waa talagu soo magacaabay dee wixii kale ay leedahay dana de laguba tilmaami maayo adiguba waad arkay kullayba waxaan kulaanahay annagu soo dhawow gudoomiye tafadal diyaar baan kuna haddaan aqlada nahay Somaliland waxaan kula shaqeynaynaa intaa ka bacdi waxaan halkan kullay salaan uga dirayaa jamhuuriyadda Somaliland ha noolaato madaxweynaha Maxamed Maxamuud Siilaanyo ha noolaato marwadiisa Amni Waris Maxamed Jirde ha noolaato madaxweyne ku-xigeenka iyo marwadiisuna ha noolaada intaasaan kusoo gaamiyo iyo ku-xigeenkiisa Axmed Sariici dhammaan dawladda ayaa salaamaya marka labaad waxaan salaamaya madaxda magaalada degmada Qurjeed gudoomiyaha cusub waxaan dhahay ku soo dhawo qalbi furan iyo gacmo furan meesha aan ka tirsanay waxa weeyaan beesha Qurjeed ka tirsanay jirjir leedahay eeridka tuulada ah ku xigtay Qurjeed marka waxa weeyaan ku soo dhawo kula gudoomiye qalbi furan iyo gacmo furan deegaankii oo dhan baan nahay anagu wixii hore u garan weynay markaan garanayna baan leenahay waxaan leenahay dawladuna iyadu waxa weeyaan xaggayga naga qaabisay anaguna shaqadeedii waan qaabinay laakiin maanta inaan garanno oo wax qabsano baan diyaar u nahay assalaamu calaykum wa rahmatullahi waxaan si gaar ah salaan ugu dirayaa dawladda Somaliland madaxweyne ku-xigeenka dhammaan hay'adaha dawliga oo dhan inta dabadeed gudoomiye waxa weey annagu waxaan nahay dadkii beelaha ka socday beelaha ay xukunto beesha degmada Qurjeed dadkii ka socday baan nahay odayaasheedii baan nahay gudoomiye degmadu waxay xukuntaa dhul ballaaran oo degmo ku filan beesha ugu degmo ballaaran ama ugu degaan ballaaran weeyaan degmada Qurjeed waa beeraley waa xoolo dhaqato marka allaha ka dhigo kii ka shaqaysiinayay dhibaatada ka jirta waxa weey wali beesha lagama shaqaysiin oo nacfiga ku jira lagama soo saarin saa darteed dawladuna kama shaqaysiin dadka deegaanina kama shaqaysiin marka waxaan ku rajaynayaa inaad noqoto kii ka shaqaysiinay waxaan si gaar ah kuugu sheegayaa dhibaatada ka jirta
degmada Qurjeed dhulka ay xukunto qaybta beeraha waxa ka jirta dhibaato boholo dadku dhulkii uu qodanayay ay kaga dhaceen boholo oo jeexnay waxa kaloo dhibaatada ka jirta tahay xoolo dhaqata weeyaan degmada deegaankeedu ay u baday xoolaha oonan haysan daryeel caafimaad iyo hawlii la xiriir saadarteed gudoomiye waxaan kugu soo dhaweynaynaa gacmo furan waxaan ballan qaadaynaa inaan kula shaqeyno adna waxaan ilaahay kugu baryaynaa kii ka shaqaysiinayay degmada in alla ka dhigo dhammaan waxa weey waxa halkan imika jooga 16 beelood gudoomiyeyaashood iyo odayaashii deegaanka waxa kaloo jooga odayaashii degmada Qurjeed dhammaan waxaan ballan qaadaynaa haddii aan nahay odayaashii iyo maamulka anagoo iskaashanay inaan si fiican kula shaqeyno wixii sharci loogu leeyahay macnaha dawladdu ay ugu leedahayna inaan sideeda u dhaqan galino waxaan ku rajaynayaa inaad noo doonto wixii xaq aan ku leenahay dawladana kii noo doonayay inaad noqoto wassalaamu calaykum waxa inagu waajiba aan guntiga dhiishaas kaga dhigno oo sidaan u dhaqaajin lahayn hawlaha in hor yaala ee u soo saari lahayn degmooyin badan oo inaga horeeyo waxba ka dhaqaaqin baa jira boontan inaga xigtaaba kamid oo imika ma soo haysta ya waxaan doonaynaa inaan taa inaga horeysa ee dawladda hore bixisay wali wax ka dhaqaaqi la teenan inay ka horeyso way ma ka taqri badannahay waa ka xoolo badannahay waana ka beera badannahay maamul fiican oo inuu hogaansho baa inaga maqnaa waxaan u baahannahay in cashuuraha waa la qaadaa way baxaan waxba hadana ka darmaayno waxba beeraha ka bixin waxba looma qabto boola ka go'ay baad saar baad diginta ka dhigay maanta sameeynaa ku inagu hadaa laga helay dib uga shaqeynaa deegaanka ee baxsho balanayna waxbana looma qabto dubooli goysay tubcad saar xoolo dariyoobay oo daryeel haysan darayo aad bay nooga dharigtay laakiin waxaan ilaahay ka baryaynaa maanta inaan ka baxno oo isbedelka cusubi de si fiican maanta daryeel duuyi iyo dal dhul baan uga baxna la doonaya iyaan ilaahay ka rajeynaa kana baryaynaa xagga nabaad guurka uu jira dhulka kuma hadin buur xooluhu warta de way xangaabay way kadeedan yihiin xeerkooda yihiin buurkii yaraa kii hoos yaalla uu baa sheeganaya la dhakada buuri ni aliba eedaga yar ku jiro kii buurta ku soo fayay meel uu maraa ma jirtay kii koor dagay laga yaalla uu baa sheegtay lagii ku xigay farta xooluhu saas aad ugu cadaleeyeen de dawladii hore dhulka bixisayna dhul xoolaad bay reebtay dhulkii xoolaha ee buuraha iyo dhulkii jafaaqaya loogu talagelin imika dayntii burbur deganaa baa iskale xoolo horta saas inaan xaggaan uga cadumayeen uga cudcudyihiin iyagoo oo daryeel caafimaad aan haysan taa qudheeda in de hoos loo eego dawladda de isbedelka cusubi wax laga dhaqaajiyo iyo fiican duuyi iyo beertu waa isku dheeli tiran yihiin oo labadaba dhaqaalaha ka soo galaya degmada marka waxaan kaga baxayaa waxaan ilaahay ka baryaynaa inaan isbedel fiican oo lagu faa'iido oo lagu faano inaan horta halkan ay ka dhacdo waxaan haddaan laga helo kuuna ballan qaadaynaa gudoomiye annagu haddaan nahay Qurjeed deegaankii Qurjeed anagoo gasha Qurjeedna ka mid ahay inaan kula shaqeynayno oo meel walba kula galayno oo haddaan laga helo wixii naga waajib dee waajibka nimbayn buu leeyahay intii annagu aan lahayn abood ahaan inaanan waxba kaala hadhayno oo kugu garab galayno kasii boqodinayno Qurjeed waxay noqotay degmo kuwii beelahana waxay noqdeen tuulooyin bay noqdeen aan markaa waxaan ka mid tuulada Araad aan gudoomiyaheedina ahay haddii aan intaa hore ku gudbo run ahaantii sida ragga igu horeeyba ay sheegeen way jirtaa wax maamul xumo oo ka jirtay deegaankani way jirtaa waa marnaba la taaba qaadin oo nan gudoomiyaasheeda iyo gudoomiyaha degmadu aanan hore isku la qabsanin laakiin insha Allah maanta wala isla qabsanaa
dhibaatooyinka ka jira deegaanku sida odayaasha ugu horreeyay ay sheegeen aad iyo aad u balaaran yahay haddii xagga beeraha aan soo qaadno haddii aan soo qaadno xagga xoolaha oo iyagu haba yaraatee cid u maqaniba aan la garanin caafimaadkooda cuntadooda dhirtii oo dhan laga wada jaray markii dhirtii ay cuni lahaayeen laga dhameeyena dee ay ku iman doonto saxara laakiin aanu dadweynuhu weli aanu dareensanayn in dhibaatadaasi ay soo socoto oo ku leeyahay xoolihii caatay noqdeen haddii isagaana ka jaray dhirtii ay cuni lahaayeen oo dhameeyo dhuxul ka shaqay waa dhibaatooyinka ka jira in laga ambaqaado u baahan in kayd loo sameeyo oo xilliyada jiilaalka loo dhigto si looga gudbo abaaraha taasina waa muhiim oo waa shayada u baahan mas'uuliyadana fulin karta shayadaasi qofku ma fulin karo oo ma baa fahamsano waa kan dhirtii wuxuu neefkiisu cunay waa kan goynay laakiin mas'uuliyadda ayaa fulin karta ayaan leenahay dadka markaa in sidaa loogu booriyo oo barorta intaynaan dawlado iyo hay'adaba u gudbin barorta inagu nidaam ahaan aan dadkeena ulahan qaadoon uga dhaadhicino taasiba markaa lagu gaari karaa wax qabad haddii aan laakiin waa shitoonuna aynu ka sugno idayno kuma gaari doono waxba dhaqaalaha degmada markaan ka hadlo horta degmadu tu imika abuurantay maayna watu waqti badan soo jirtay haddii ay soo jirteen way jiraysa iyadoo tuula in degmada Boorama ay dhaqaalaha ugu badan ka iman jireen quljeed waa looga laakiin ma tahay jirin miyay ka maqan tahay markaa ma yaban lahayd way ku jirtaa dadkii ka soo saari lahaa ayuun baa meesha ka maqan أنا والله الدنيا أوسط أكو صور دوادو شقف عن يوح قبض وكهليان تولوينكا أي روسي مادن السجن أو حلقة ربع ده كي إنه فوليو أو دقاشي على ربع وهوي تاني هذا كنتي هذا واحد أركيسا إلى الصعدان قابض أيكو دونيا marka qaabka ay doonayaan inay u fushadaan laakiin iyadoo halkan taalo ay beerihii dhibaato ay ka jirto illa keeno shay aanan anfacayninba waana taay doonayaan iyo kumar waliba inay u socodsiiyaan taasina waxay ku xidhan tahay mas'uuliyad inay had waliba ka dadaasho shayga danta waxaad arkaysaa ceelal qodob arkaysaa meel buqdha abaa laga qodayaa waxa lagu ridayaa dabalula inta hantiya lagu bixinayo waaba yadii baaba turtur socda maxayna u baahnayd meeshaas in caafimaadkeeda wax laga qabto kaneecaba ku dhamaynaysa halkii caafimaad laga siin lahaaba ceel looga sii qodo mas'uuliyadda aanu kala dardaarmaya ama dhamaanteeba aan kala dardaarmaya in shayga laga qabanaya uu noqdo shay wax qabaday uu noqdo oo dadka anfaca inuu noqdo ee aanu noqonin shay qandaraas lagu qaato ninba qandaraas soo qaadanaya wuxuu ku bixinayaa meesha agteediina shayga way u baahan waa dhibaatooyinka jira weey shayada in sidaas loo kala qiyaaso anagu waxaan kulli ballan qaadaynaa haddaan nahay gudoomiyaashii tuulooyinka hoos yimaada degmada quljeed hadday cashuur tahay iyo hadday dhaqan tahay iyo hadday nabad horta mid waan ku guulaysanay run baa wanaagsan nabadgelyada degmada Boorama anugu 20 sanadood baan gudoomiye ka ahay hal qof oo kiisa oo geeyay degmada Boorama lama hayo waxaan ku dhamaynaa bartaan taagan ama tuulooyinku baa marka la leeyahay maynaan gaadhin gulweyn gaadhin nabadgelyadoo kale meelaha ugu wanaagsan anu hadalkii ugu badiyay waxaan ilaahay anagu mas'uuliyad ahaan iyo dadweyne ahaanba waxaan diyaar u nahay inay degmadu noqoto degmooyinka ugu fiican Soomaaliland kulankeena waa idku mahadinayna aan isku nimidnay salaan dawladda sare madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyo dawladda bana salaam baan waxaan joogay anigu halkan 8 bilood baan joogay 8 bilood aan joogay halkaas dhiga taagnaa wali ragga meesha isku yimiday ma arag wax isku kaaya keenayna ma jiro inay jirayo inay jiraan mid kayna mid ma oga horta mahad ilaahay waxa ah maanta inaan isku nimidnay
gudoomiyaha laynoo keenay isku keen baray oon isku nimidna hortaas iliyo waa mahadinahay midna waan idin odhanaya haddii aad tihiin reer Quljeed inaad dad nool noqotaan baan idinku gubaaminaya anigu magaaladani magaalo madowbay mugdi bay ku jirtaa dhanna ma raacsana dadkeena uma maqna inaad marada dhexda ku xidhataan oo aad mugdiga ka baxdaan oo iftiin noqotaan oo dadka wax la qaybsataan oo dawladaha wax la qaybsataan iyaba anigu idinku gubaaminaya annaguna halkaas aanu joognaa amnigii baan nahay wixii aad tabanaysaan waan idin qabananaa inaad wax nala qabataan wax ma qaban karra inaad ku nala qabataan waan doonanaa wixii naga farabata ee nagu xoog roonaada inaad nala qabataan waan doonanaa walaalka yar waan garab galanaa anagu ballanna waanu qaadanaa meeshii uu maaragtaa madaxa geliyaba inaan la gelino waayo dawladdu waxa weeye dee madax iyo mijeereedahay isagu madaxii dawladda inoogu wakiilahaa weeye annaguna amnigii baan nahay mar haddaanu amnigii nahayna annaguna garab galla weeyaan anna waxaan idinku codsanayaa inaad isagana annu saanu garab gelina idinkuna u garab gashaan war marada dhexda ku xidha war hurdada ka kaca war dadku wax la qabsada war mugdiga ka baxa magaalada laynu keena ha iftiinto anagu mugdi baan ku jira habeen walba baalkaa noo soo gala intaa ila waa iftira ma haysano lacagta idinka idinku jirto maalin dhulkaa lagu iftiiminaya ya wax kastana waa la idin dooni wax kastoo hay-ad hayso wax kastoo dawlad hayso dee meel kasta wax ka doonta haddaad halkan ku oodnaataan dee ayaa idiin hadli ayaa idiin tegi ayaa idiin qaylo tegi waar garabka qabsada walaalkaygii horena ee meesha aan ugu nimidna isagana alla u gargaaro imadama waar tolka u yeedh waar isku yeedh waar keligaa waxba noqon mayse waar wax ma qaban karti waar farqudhi waxba qaban kari mayse kuwa aad maaragtaa hataa kuugu xunxun waar wehel ka dhigaay oo soo qabso dadka qabso dadka waa la dhaqdaa markaa walaalahay waxaan idinku gubaan yaan idinku badinin dembigeenna iyo dembigii waalidkeennana allaha dhaafo muwaafaqana allahayna siiyo muwaafaqa allahayna siiyo عرفتين يا هذا الكيجي كقدرسين إد ماشى كنت معدين إلهي هرت إنك عم حدا إسكاله هرت الله بعد واحد سلام يا دولة الصومالي لان قارهن مدحوينها ضلك يوم مدحوين كحجين كيسة يكنس وان سلام يا انت الله دافعان وهذا الديرين ما يدهول كلاين نوت الله إنان واحد بدن فلانكاينو لبا يريون بانودانا يا labada ereen oo dhan iyo waxa weeyaan waa inaad maanta ku tala gashaan sidii aanu wada jaan qaadi lahayn harawna ugu socon lahayn inaad idinku ku tala gashaan anna waxaan ku tala galayaa waxyaalahan cabashadu in hor taalo sababaha ay keenay biiba kamid yihiin waa beera iyo xoolo 36 sanana jaanibi soo shaqeeyay iyo dad kale maanta aqoontaydi idan inikayna geliyaan shabaahada aqoontayda waad garanaysiin waa dhaqtar xoolaad baan ahay Ethiopia dhaqtarkii xoolayo isku jira beerahana khabiir baan ku ahay beerahana expert wax la yiraahdaan oo khabiir baan ku ahay labada meel kale inigu dooni maayo horta waxaad ku bishaaraysatiin labada meel kale inigu أنا قعنتيدا وحن يبين كرنا كسو يبين أنا قعنتيدا نقصو كحين عدي خصيصي هرت لا بدا عن مشوا يمدنا ولا بدا كه وحنم ملاينا يا بلنقات ككلين النيش شيء وحويا بيليه الناس الناني عدالة دينا كددال إن كستم بلادنا هم وذكيني لكن أنت وقبضا إن إلالية عدالة دي السنانت وأخذ الحيلة على ضد أنا مركا سدايو ده وحي كلا فديجينا كفلا قينينا شركنا وينو حدين يهي وانتكم مهد سنتين لما ضد كلا أدي جلها ورجلين سلام يا شركة حفلة دني لسوا جاسمي علمي ميدانة دكتور كبير دكتور ديجا ياره أدبو مهدسيهاي دقمة قلتي دقاء يكون أدبو مهدسيهين والسلام عليكم ورحمة